السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني وادي سلامة يا دمانتين وحن سجارة وسلامة يا ولكن محمد علي نور أمريكا سودواو عرض النرويج أنا كسجارة أي مهم يقول تاينا تمادي صبته أرنجارها جرت أوقات أنا مهم يوقع Somali dan muhiim hadday maqleen arintaas waxay tahay waxaan aad ula socdaa blogyadaada Twitterka amba Facebookyada waxaa jirtay arin adiga personal ku soo martay oo ahayd waan arin ku salaysan runtii hadii si cilmiya ama academic loo fiiriyo wax gal u ah dadka Soomaaliyeed arintaas oo ninkii gabadhaada dilay inta ku yimid ku yiri aniga ku gabadhaadi dilay kulay gabadhaada waa la dilay ninkii dilay nimaad ogaan waad qaxday nolol badan soo martay wuu ku yimid wuxuu ku yiri walaalow ana qoorta iska soo qabtay gabadhaadii baan dilay icaf qof ilmihiisa la dilay ee la soo hor fariistay qof walba uu garan karaa aniga si gaar ah ii taabatay ummadda Soomaaliyeedna waxay tahay u tahay wax inay ka ay ku waana qaataan aba ay sameeyaan yani tanasul waan ognahay waxaan soo marnay dagaal soo bilowday 8meeyadii waa la iscalool dooxay waa la isdhacay waa la isdilay wiil iyo gabar gabdhiya la kufsaday wax walba soo maray soddonka sano iyo ka badan baa yani waxaan sameeyay wax la yiraahdo afis iyo tanasul baan sameeynay maskaxda in laga shaqeeyo waa muhiim soddonkii sano soo dhaafo dadkii dhintay hadii wali calaadooda joogto macnaheedu ma dadka ma soo noolaanayaan dadka sii dhimanay horumarna ma gaareen la'aan arinta maxamed waxaan u soo qaatay gabadhaada ninkii dilay markuu inta ku yimid oo ku cafi waa dili kartay laakiin meesha waxa sida ku soo baxsan qiyaasa gabadhaada ma ku soo noqonayso aakhirana waa ku sumaysaa ajirna wuu ku socdaa magacna waa ku leedahay dulqaadna way tahay samir ilaahay ku siiyay marka ummadda Soomaaliyeed waxay arintaas u tahay yani inaan iscafino inaan tanasul isu sameeyno in hantida la iska dhac la isu celiyo horta aniga arintaas ay ugu muhiimsan maanta aan mid waxaan idin ka codsanayaa idinka iyada codsi tahay inaad hal mar istaagtaan una sabcisaan walaalkeen Maxamed ilaahay abaal ka siiyo إن تصب إنسان وصل هذا وصل ما صعب وصل وأدو ما تنتين أرنتاس إن أي نقطة أرنتو صالة إن نسعفنه وضن كان عندسنو laysku gacmaha la isqabsado wax muhiim ah waxa kale oo aan rabay inaan ka hadlo aad ii taabtay oo waxay tahay arinta federalismka ma ku dheeraanay federalismku waxay ahayd in la qaybsado wax soo saarka wadanka iyo tafaashiista ma ahayn dhulka in la qaybsado in gobol iyo qabiil loo qaybsado qof kasta annaka naga mida hadii la yiraahdo ma soo dhaafi kartid Hargeysa sababta reerkaaga Hargeysa deega ma soo dhaafi kartid Boosaaso ma soo dhaafi kartid Xamar ma soo dhaafi kartid Jowhar waa ogtiin waa xanimaad marka dadka inaan xuduud loo sameeynin in waxaan ahay wadanka ugu madaxweynayaasha badan waxaan ahay wadanka ugu caasimadaha badan waxaasna waxa weeyaan waxay ku samaysan tahay qabiil waxaad aragtay maamul goboleedkaas wuxuu leeyahay military horta sababta militariga loo sameeysan maxay tahay militariga qaranka ma jiro military dadkii loo sameystay waxay ahaayeen Kenya Ethiopia gudaha noogu jiraan waay marka annaka macnaheedu dagaal sokeeye ayaan wali diyaar u nahay weeyaan markii nin walba uu taanga haysto oo militariga Puntland militariga Banaadir militariga gobolada dhexe militariga Somaliland markii la yiraahdo qaatuma military ay leedahay Ethiopianka iyo Kenyaatiga gudaha wadanka ugu jiraan horta military cadawgeena waa ayo manaka cadow soo ah annaka ma ahan in annaka cadow isu noqono marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa aan farayaa hogaamiyaasha Soomaaliyeed inay maaragtay arintaas ka fiirsadaan wadanka cadawga laga saaro hubkana laga dhigo walaalkeen mar labaad waxaan ku leeyahay soo dhawaaw waana mahadsan tahay assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh سلطان عبد قوي بسم الله الرحمن الرحيم walaalayaal waa salaamantihiin salaan kadib
أنت هذا المعان أدو احترى أمان رجع جوهري أيا يري رياشي يعقاشي يصلابينتي أنا يقول waxaan rabaa inaan ka hadlo marka hore dadka sidii ninka odag ahay yiri weli qofna sooma hanaan dhaweyn annagu asaga nimaadnaa markii naloo yeero dadka madaxda waa u nimaad aan u nimaadne qalbigeenna ilaahay baa ka warqaba waayo nin walba wuxuu yahaan ogna laakiin محمد علي أمريكا وحن كسر دوينينا قلبي أنا ولك كسر دوين ننكستون دوي ماذا أنا كسر دوين وحن كلنا هاي محمد سفير كأني هرو ولا وحاب ماشان فردية وصومالي أردن waxayna ku jecel yihiin wixii aada Soomaali u qabatay oon beenahayn marka maanta meel kasta oo aad tagtid oo Soomaali ay joogto sidaasoo kale lagugu soo dhaweynayaa adigaana keensaday adiga ayaa keensaday waxaan marka ka codsanayaa madaxda Soomaaliyeed meel kastaba ha joogeen sidii Maxamed Cali Ameeriko oo kartidiisa iyo Soomaalinimadiisa u muujiyay in loo muujiyo wax kasta darajo kasta iyo qarash kasta iyo faan kasta waxaa kaaga fiican ummadda Soomaaliyeed oo raalli ka noqota oo sidii Maxamed Cali Ameerika aad ugu shaqaysay Soomaalida meeshaan fadhida waxaan u sheegayaa waxaan nahay dad isku ummad ah isku dala isku diina isku walaala ah Soomaaliyeed oo idin xoreynaysa lafaheedu inay yaaliin meesha aad degantihiin asalkiinuna waa Soomaali annaguna Soomaaliyana walaalaan ummadda ha loo turo walaalnimada iyo Soomaalinimada yaan la iloobin dagaalka Soomaali dhexdiisa meel kastaba la joojiyo Soomaaliyaale meel kastaba kelin karta ha sheegto Soomaaliyaale walaalnimo Soomaaliyeed waa aad aragtiin dhulkeenna waxa yacni lagu samaynayo oo dawladaha dariska ay nagu samaynayaan qaarkood ama iyagoo dhanba ma u dulqaadanayno isku midaan ka nahay waana daafacanaynaa dhulkeenna waana iska celinaynaa mana ogolaanayno Maxamed Cali Ameerika waxaan kaa codsanaynaa adigana wixii adiga aad ogtahay wax badan oo aan ogeyn aad ogtahay inaad noo soo bandhigtid oo hoos iyo korba noogu sheegtid oo yacni dhiiggeena kicisid oo yacni maaragtay wax badan aad ogtahay waxba ha qarina sheeg wasalaam mikrafoon ku soo dhawow ummadda adiga بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب وناكسن حبيب وناكسن كودك وعلى بري هذا على بري أدي أدبان كما تعلنيها ما أنت هكان يوسف دوسين يشاريتو ويربورك وما شاء الله سفع عند يوسف دوي ولا شيء لول كلمية هذا كل مسو marka aad iyo aad baa ciidan ugu mahad celinayaa odayaashii ma taqaanaa iyadoo galab ay tahay roob da'ay airport yimid ma taqaanaa ay soo dhaweeyay waa aad bay ii khushuucisay sharaf baa istira ilaah sharaf ayaan siiyo dadkii hadla maanta kulli aad bay u ficnaayeen laakiin waxaan rabaa inaan ii sheego waxaa qiiray gelisay gabadhan dhinaceeda fadhida waa ka xishoodsiinayaa raaqiya waxay ku hadashay ayadoo 3 sano jirto halkan timid inay weli ma taqaanaa ay Soomaalinimadii iyo inay dadkeeda caawinto inay ku jirto iyadii waalidkeedaba ma taqaanaa ilaahay
ayaan ajalaha siiyo inay Soomaaliya tagtay inay waalaha Soomaaliyeed oo jooga magaalooyinka soo jirsay hadda ma tirin karo ay dadki ay dhallinyarada la hadashay ay kala hadashay arrimaha tahriibka waxa waaye wax aad iyo aad u wanaagsan waaye ayadana aad bay u mahadsan tahay aniga safarkayga saa sheegteen waxaan safiir aan ka ahaa oo dowladda Soomaaliya wakiil uga ahaa waddanka Kenya muddo 8 sano ku dhawaad bishii hore ayaan xilkii soo wareejiyey shaqaale dowlad baan ahaa Jamaal Xasan oo ah safiirka cusub waan u hambaliyay waxaan ilaahay u baryaa in ilaahay hawshiisa u fududeeyo waana saaxiibana waaye waan aaminsanahay inuu hawsha ka soo bixi karo insha Allah taala aniga safarkayga wuxuu ahaa aan u socday oo hadda halkan kusoo marayay waxaan hadda ka imid Sweden waxaa iga horeeyay oo aan soo maray Denmark waxaan tagi doonaa insha Allah taala Finland inaan jaaliyadda Soomaaliyeed oo mataqaana aan u mahad celiyo intii aan safiirka ahaa si wanaagsaneed aan u shaqeynay gaar ahaan mataqaana markii aan xiriyaha qaxootiga tagi jiray oo dhibaatooyinka ay jireen sidaad markaan apiilka baxsho oo aan idiin sheego dhibaatooyinka jiro sidaad si dhaqsaha leh ugu soo jawaabteen oo aad dadku u kaalmayseen inaan idinkaga mahad celiyo iyo inaad sii wadaan dhibka weli ma dhammaanina midda kale oo rabo inaan ka hadlo waxa waaye intaan safiirka ahaa oo aan xiriyaha qaxootiga tagayay waxyaabihii aan la kulmay hadda hal waxaa sheegtay walaashay canab aa sheegtay oo arrinta sabarka ah aniga waxaan aaminsanahay Soomaaliya waxyaabaha oo aan ilaa hadda dhibka ugu bixi weynay inay ugu horeyso leesma cafawli see sheegtay dagaalada sukay markuu dhaceen dad walaala ahaa oo daris ahaa dad aan daris ahayn oo aan isgaranayn waxaa la yidhi waxaa waaye qabiil hebel waaye kan qabiilkiisa saas waaye waa la isdiray ilaa hadda waxaa la kala haystaa guryo iyo hanti kale lagama hadlin nin shalayto aniga aan dugsi quraan wada dhiganaynay oo aan beri wada ciyaaraynay ayaa waxaa la yidhi waxaa waaye qabiil waxaa waaye mataqaana qabiil kale waaye oo mataqaana halaala dagaalo marka horta hore waa intaa laga baxaa aniga waxaan aaminsanahay Soomaaliya waxay u baahan tahay truth and reconciliation sidii laga sameeyey South Africa sidii laga sameeyey Rwanda in la soo fariisto dad badan ayaa waxaa ka buuxaan inay hadlaan iyo doonayaan laakiin facility iyo meeshii ay ku hadlaayeen weli lama sameyn Soomaaliya waxaa la dhihi jiray waxaa maqli jiray markii baadiyaha la isqabsado ama la dagaalo ama la dagaalaan waxaa loo fariistaa gate hostis maybe waxaan baahanahay in gate hostis la fariisto ciddii wax dishay ama wax haleysay iyo ciddii wax laga galay laga sameeyey inay soo fariistaan in la hadlo xafiiska qof kale ayuu mataqaana u yaalaa laakiin aniga waxaan aaminsanahay 25 sano iyo ka badan ayaan kusoo jirnay suu sheegay maxaa la weydiiyay subel sheegay wiilkii ama gabadhii dhalatay 1991 maanta waxay 34 sano ama 10 sano weli dowlad ma arkin mataqaana maybe ma garanayo dowladda waxay tahay school way aadeen mise ma aadin waddanka waxaa jirta shaqo la-aan qaarkood waxay garanayaan in gurigooda ay raashin keenaan ama ay wax keenaan waa qorigaas waa qori keliya waa in maskaxda laga bedelaa in annaga dadkeen hadda aniga idinkoo kala ahaato october maxaa la diaspora ka imid oo reer Canada ahay dadkeena diaspora waxyaabaha halkan aan ka baranay ama aan ka aragnay for example maxaa la democracy-ga doorashada inaan qofka rabtid aad dooran kartid free and fair election in ilaahay insha Allah taala Soomaaliya ka dhacdo in la dooran karo qof kasto lagu dooran karo waxqabadkiisa aniga personally arintan 4.5 ka waa kasoo jeeda qof kula mid ah siluliya waa half marka insha Allah taala Soomaaliya waxaan rajeynayaa in arintaas laga baxo in mataqaana dadka ay midoobaan midnimo ayaa naga maqan waan ku faraxsanahay jaaladaha dibadda aan soo arkay iyo idinkaba inaad midaysan tihiin midnimo ayaa horumar lagu gaaraa in Soomaaliya ay midoodo ayaa ilaahay ka baryaa insha Allah
waxyaabihii aan rabo inaan dadka la qaybsado oo aniga aan dhihi karo nolosheyda iyo nafteeda ayay bedeshay markaan xeryaha qaxootiga tagay. waxaa ka mid ah maraan tagay xeryaha qaxootiga oo raashin aan ka qaybinayay ayaa waxaan kusoo dhex wareegayay xeryaha qaxootiga meel laii sheegay inay ahayd dadka cusub inay la keeno oo la geeyey oo ay ku jireen teendooyin yar oo mataqaanaa laga sameeyey baci laga sameeyey. ayaa anigu meesha dhex marayo ayaa waxaa ii yeertay islaan waayar. shakadan waxaa taariikhda waa xasuustaa, maalinta waa xasuustaa, waxaan aaminsan nolosheeda saan u dhaqmayo inay wax ay ka bedeshay, ay si fiican u bedeshay ayaa aaminsanahay. islaanta waxaan ku qiyaasahay sanad inay jirtay 60 sano ku dhawaad. waxay dhahday eedu soo gal waxaa la dhahaa kanada dhexdeeda. markaan gudaha galay, gudaha waxaa la fadhiyay 2 wiil iyo gabar da-dooda ku qiyaasa iyagana 8 sano iyo 10 sano inay ahayd. waxay ku tiri waxaan ka nimid Soomaaliya maalmo ka hor 5 maalmood ayaan soo lugeynaynay, dhib iyo qaxar baan soo marnay. ilmaha waxay tiri ayaan u ahay, waxaa dhalay wiilkayga oo dhintay dhahday, hooyadna waxay dhahday mar dhow dhimatay, saas ayaan usoo qaxnay. waxay tiri hadeertaan meeshaan ayaa nimid. intii hadlaysay ilmaha waxay u qaybinaysay canjeero qallalan waa saliid ma laha, sokor ma laha, wax ma laha, waa qallanti. ilmihii ay mid u siisay, tii saddexaad usoo hartay anay isu taagtay. waxaa laga yaabaa maalintaas oo dhan wixii ugu dambeeyey ay cunayeen inay intaas tahay. ani dabcan uma baahneen. waxaan ku dhahay eedo ilmaha u qaybi ama adiga cun. laga diiday si waliba waxay uga hadashaxnayo. ayadii aan soo xasuustay. waxay tiri cun. hadalkay sii waday waxay ka sheekeynaysay meesha soo martay iyo dhibkii iyo wixii ay ka sheekeynaysay. aniga cajaradii ilmihii oo u dhibantay hadlaysay iyo ma arkin ayada. waxaan ku keenay sheekada oo aan rabaa dadkan inaan u sheego. waxaa waaye islaantaas waa yeelka ah oo dhibkaas soo martay oo maybe intaas ay ugu dambeyso waxay cunto waxay garatay inay dadka la qaybsato. waxay dhahday dhaqankeena iyo diinteenna ayaana faraysa inaan martideenna iyo dadka kale aan soorno. ani markaa yaraa wax ku xasuusta waxaan maqli jiray maalintii wax lama cuni karo, lama quraacan karo, lama qadayn karo, lama cashayn karo ilaa dariskaada aa ogaatay. dariskeena soo ogaada iyo waalidkan dhihi jiray waa is ogaan jirnay. ciidaha masaakiinta oo mataqaana oo aan waxaysanin anagaa bixi jirna oo wax ugeyn jiray. ilaah ka barya islaantaas waa yeelka ah waxay garatay in ilaah nagarsiiyo anaga markaa naga batay waxaa cunna waa naga bateen waa la daadinaya mataqaanaa kafee iyo sandwich aan lagu cunaya $5 iyo $10. dadka waa leena ogaano aan is ogaano. soomaali ayaa iskale. soomaaliya cid kale uma maqna. wadamada saaxiibadaan nahay, wadamada deriska aan nahay wayna kaalmeynayaan, gacan bayna siinayaan. laakiin annaga inta aan ka midoono oo annaga wax istarno markaas ayaa Soomaaliya ayay mataqaanaa nabad helaysaa. marka aan sugaano waxaa soo socota bisha barakeysan Ramadaan. dadka hala ogaado, dadka qaarkood waxay iska dhaafay ku afraan waxay culmeystaan, dadka gacan hala siiyo. waa ogtihiin qaxooti fara badan ayaa hadda ka imaanaya Yemen. waxaan aad uga mahad celinayaa mataqaanaa Boosaaso, Puntland, Berbera, Somaliland, Xamar. dadkii la soo dhaweeyey aad iyo aad baan uga mahad celinaya. waa wada inay soo dhaweeyeen ay gacan siiyaan. idinka iyo annagaba aan ogaano dadkaas masaakiinta waxa loo qaybiyo. waa maqashaan olayna maalin dhaweyto in wiil yar oo casay ah mataqaanaa 12 sano jiro in $1 uu yiri mataqaanaa waxaan u deeqayaa masaakiinta qaxootiga ah oo Yemen ka yimid. halka $1 waxa waaye maalintii oo dhan wuxuu sameeyaa. marka dadka in lagu daydo mataqaanaa wiilkaas yar wuxuu sameeyey iyo ka badan inaan sameyno. warka ma badinayo. waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo mahad awe mahad hadiyadoo ii sameeyey aad baan uga mahad celinayaa.
marka wixii su'aal qabtaana waa idinka jawaab insha Allah laakiin shalay waxay ahayd kan baahan u balla aadi jirnay maanta waxaan dhahnay in adeerkay taabaa meesha wax ka qaldaban ayadu deriskaagu uu baqtinayo bal laga yaabaa in adeerka kontomeeyo kilomitir jira inaad lacagtaa u dirtid marka haddii mid walba uu mas-uuliyaddiisa qaato ee asiga waxa ku heeran uu indhaha u rogo waxaan isleeyahay hanaan fiican baa dhalan lahaa horumar fiicanna waan gaari lahayn ma aha diintu waa tiina tiri xigtadaada hagaaji laakiin deriskaaga hagaajiya la socota marka haddii deriskii uu baahan yahay xigtadii xaggay ku jirtaa marka labaduba waa waajibna saaran السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka ugu horeysa horta waxaan ku salaamayaa salaanta diinta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u mahad celinayaa marka hore luul kulmiye oo runtii magac cusub baa imika halkan ka soo baxaya kulmiso calaamada ka maqnaa laakiin inoo suukeen yeedhay oo runtii inoo samaysay inaynu soo dhaweyno walaalkeen safiirka maxamed oo runtii isaga laftigiisa aanu ka baranay meediyaha siduu mahadba u sheegay maxamed waxaan leeyahay walaal kusoo dhawow halkan waxaanu nahay jaaliyadda soomaaliyeed ee halkan degan oslona in badan joogtay aniga iyo runtii dad badan oo halkan wejigooda ka muuqdo mar walbana waa la soo kordhayaa oo soomaalida imika waxaa lagu qiyaasaa ilaa 30,000 haddaanay dhaafinba 36 kala badh ahaan waxay degan yihiin oslo 15,000-16,000 ayaa lagu qiyaasaa dawaad garan kartaa intay yani leedahay mas-uuliyaddaasi iyo arrimahaasi marka runtii anigoon wadankii iyo arrimaha siyaasadda aan aada ugu sii dheereyneyn annaga haddaanu nahay musharaxiinta oo aan runtii kusoo biiray imika musharaxiinta u sharaxan golaha deegaanka ee oslo sanadkan 2015 markii hore waxaan ahaa musharax ama loo soo doortay biidelka ostensho magaalooyinka Skullerud iyo maxaa la degmooyinka Skullerud iyo Böller iyo xaafadahaas oo dhan 4 sano ayaan soo fadhiyay xisbiga aan ka socdaana waa xisbiga social left party la yiraahdo ama SV qofka sidoo yaqaano waxaan jecelahay runtii dadka qaar waxay weydiiyaan war maxaa meesha ku soo galiyay qolooyin badan oo horeba way joogeen runtii markayga hore anigu waxaan ka soo bilaabay arrimaha ururadan la shaqeyn jiray waxaan jecelahay inaan runtii wax u qabto ummadda waxaa jirtay in nalagu hayay weerar badan oo Soomaali ahaan meediyaha nalaga soo ataagay runtii waxaa jiray dad runtii iyaguna caawinayay oo qaar bugaag naga qoreen qaar TV-ga soo fadhiisan jireen oo naga caayi jireen haddaan Soomaali nahay sideedaba runtii dhibaatooyin yar weyn haystaano marka la soo dhigo waxaan la yiraahdaa statistic mar walba waxaanu ka galnaa halka ugu hooseysa oo imika haddaad eegto anu waa ka sii naxaabay intaana furin waayo waxaynu ku jirnaa halka ugu hooseysa waxbaa si aynu xagga sare ku jirnaa waxaa miyaa garanaysaa باي waxbarashada xagga hoose ku jirnaa doorashada runtii waa wax lagu farxo dhalinyarada Soomaaliyeed waliba dadka yar weeyaan waxay noqdeen number 1 dadka ku rida foodka runtii waa lagu xisaabtamaa oo magaalada imka ajaanib badan baa jooga laakiin dad badan ma footiyaan sida awgeed baa magaalada waxa haysta siyaasadda nuur waxa loo qabiyaa bidix iyo midig dadkii midigta haysta kuwaas oo ah dadaan ajaanibka jecelayn kuwaas oo ah dad doonayeen mar walba in cadibaan jaraan wixii la siin jiray dadka ajaanibka xisbiga hoyre iyo farbeeba haysta runtii arbayda badhiga iyo SV-ga oo runtii isku garaba waxaan doonaynaa 18 sano ay haystaan meesha in aanu doorkan ka tuuro taana lagama tuuri karo haddaan la idin helin idinka marka walaalayaal waxaan doonayaa runtii inaan caawisaan magacaygu waa Saciid Maxamed Aamin ka sharaxan xisbiga SV runtii insha Allah waan soo bandhigi doonaa barnaamijkayga oo runtii idinka laftigiina xaq baa u leedihiin maxaanu idin qabanaynaa ma ahuna doortayna nidhaa qolooyinkii hore la doortana in la xisaabtamo weeyaan aniga laftigayga haddii aan meesha soo galo Ilaahay nagu guuleysiyo in la xisaabtamo fiican marka insha Allah waan wada shaqeyn doonaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba soo dhaweynayaa safiirka waxaan ku leeyahay walaal soo dhawow ku soo dhawow Oslo waa magaaladaadii runtiina waxa ay taabatay sidii aad u hadlaysay ahayd waxa tiri kelmad haddana yar ku noqdo halkii Soomaaliya la isma cafin kelmadaas waa kelmad runtii aad u weyn anigu waxaan ka yimid magaalada Hargeysa runtii Somaliland marka waxyaabihii runtii halka laga qabto waxa kamid ahaa iscafin ayaa laga bilaabay in la isu yimi
in laftigeeda waa la isku dhex dilay oo dadku way hoos ahaan bay isu wada dileen qabiille iyagu is sheegan jiray odhan jiray isku qabiil baanu nahay haddana hoosta iska sii garaacay ilaa waxaa la isla tegay halkii hoose marka waxaa bilaabantay in la is saamaxo la yidhaa war ha la is cafiyo aan waxaa odhan lahaa arrintaa safiir ka shaqee oo runtii sidii aad uga shaqayn lahaydba bal isku day inaad ka shaqayso insha allah annaguna halkan wixii aanu kaala qaban karno waa kaala qabanaynaa inaad arrintaa daba gasho dadku is cafiyaan waa step laga bilaabi karo halkaa wasalaam. Have you got any political ambition in the future? Kada dadka timid Ingiriis ka taqaanaa hadhow baad ii jawaabi doontaa nin yarna waa tahay oo nin dhalinyar baad ileegtahay aniga marka 8 sano safiir baad soo ahayd dad runtiina samaa kaa muuqdo oo nin maartay dadku dee waa dadku dee way isku raaceen arrintaas marka bal arrintaa ka fikiro dee rag badan baa imika maqan oo soo noqon doono sheekh shariif dhinac buu kasoo xaydxaydanayaa waa looba taas bal adiguna bal nin wanaagsan baa tahay bal laynkaa su-aal iyo jawaabba way noqotay bal halkaa marta yuusuf imika kaale adabadu waka macallinkii baa joogay magta waan heesayaa kaale dee macallinkii baa joogay meesha magta waan isla anagu waan isla barano marka waxaa jira yuusuf in yar kaftan iga hadla intaasi muddaan wada noolayn yuusuf oo qasru noogu yimid oo meel maartay meel tuulaabu ka soo guuray meel tuulaabuu yuusuf ku noolaan jiray marka oslo yimiday oo marka aniga waan wada noolayn aniguna dee waqooyi baan ka yimiday isaguna xamar buu ka yimiday oo dee aad baan u kala fognahay yani waxaan ku leeyahay waxaan wax cusub ma dadku dad walaal ah marka waan isbaranay yuusuf 4 bilood gurikooda noolayn ana fanka waan jeclaa fankiisa aan u jeclaysteen heesaha qaraamiga ah ee anigu xaggan waqooyiga hargeysa heesii aanu ku soo fanaan weyn buu ahaa dee music dee akhriyo oo tumo oo xagii mar ana kuwii baan baray kuwii hargeysaan baray si fiican aniga wuxuu igu bedelay wuxuu igu yidhi xaggan dee waqooyigaa tahay saaxiibna waa noqonay markaad xamar timaado nin reer mataaraa tahay marka anigu imka anu qabiilka dadka dee ka hesho maarta waxa la yaab leh qabiilkooda waa wadanahay marka anigu ninkani wuxuu yidhi markaad xamar timaado nin reer mataaraa tahay maxaan raacay wax kale waad raacisay soo maaha waxaad raacisay adaa xusan malaha anagu sidii baan u wada soconaa marka yani safiirna waxaan ku leeyahay dad badan oo soomaaliyeed oo isjecel way buuxaan meel walba way joogaan oo wanaagsan ilaahay noo sii kordhisaan heestii qaraamigii markii aan ayuu ku daray music isagu kuweydii waxbuu joogi jiro music yaroo wanaagsanoo buu raaciyo xagga hore ku raaciyey marka markuu bilaabayo dadku waxay moodayaan inay heestu wax kalaba tahayba laakiin hadhow qaraamig kasoo dhacaya haddana halkaa mageed intaas qaraami ma waa arrimo kale taagnaan wayar xaabsanaya intaas uu musigiisii ilahaas kaale nacam imika intii hargeysatay wadaad wataas يا فنان يا فنان
دارولكو علو شاني وعلو شاني في مات قبيلة وعلو شاني علو شاني في مات قبيلة ومسني كويت وين بحاجة حاجة marka hadda in awoodayna isku darda ruux la yaab la soo saarayna adduunka dhinac walba xagga cilmi xagga fanka xagga martiya kaas oo markaas ku dubnaada isku dhantaay maanta ambasa خليك يا معلم Nakubahal maraibe Kubahal maraibe Kumai goa Kubahal maraibe Rodai kubahal maraibe go iyo mar kale iyo sida aad u soo dhaweyseen reer Oslo anigoo Suldaan Madiina kamid ah Suldaan Cabdiqawi iyo rag waaweyn baa jooga xaqiiqatan in yar baan horta raacinayaa oo berigii waxa weeye wadanigu ciyaar ma markii uu hadraawi heesay uu beledweyn qaaday ayaa Cabdiqaysna xanaaqayo de waa kii Hargeysa iyo Boorame iyo tilmaamay marka gabadh isla weyn baa jirtay oo ragdiida oo wasaaradihii mid kamid ah ka shaqeyn jiray marka gabadhii baa hees baan u sameeyay gabadhii waxa ku yiri bilanay kalgacalkii baadidoonkii xiisaha bartii uu hadraawiba beerlula ku sheegiyo beledweyn ma gaadhna ما بحنا أرورتي بابور مرة على بولا حوا يلوق حمر بلا مجانا عبد قيسنا بينه بدر كي هدراو برعاية هرجيسو برعاية هرجيسية بورمة المايو بيرها وجه على أصنة كوبر واقع ميل بادكو بدنيا هي بلا المسوق عنا يا سلام سمعت كلام بطريقة عيارية بيرهي ما تمنا هاد سماذا بوبيو بدأ دون مرة على بيركي وضنها بال مركا وقدام بيسا بال مسوتش احنا هورتا علي وصاحب كي وحنس برني كن سجال بقول يسديتني يعفر تيبان تريبل اسكو برني هز ليبيا قولي ديسو وعسومي هزكي وقاعد يمرك الألباب كصوغر عيوان قرنا يا سيدي رامد قوياد دالي سنجيسي داغ سدي قردور ميري سدمبريو جوجل وقالا بالوررو سيدي رمال قوياد دالي حبك جيدالي قبل هاي كالقال باغورتان كو ايغبا قلبي يجي كلسا horta intaasi waa suugaantii waxaan ku yiri maxamedow 8 sanaad u soo shaqeynayay wasaaradda arrimaha dibadda ambassador wasaaradda arrimaha dibadda ma sidii aan kaga tagay bay u shaqeysaa mise waxba bedelan waxay ahayd sidii u shaqeynaysay afarta waaxyood waaxda Yurub waaxda Carabta Israaciil Asia iyo Afrikaba waaxda Afrika
iyo waaxda Asia okay marka labadii xafiis madax banaana wuxuu ahaa personalka kulanka xafiiska kulanka iyo xiriirka caalamiga iyo bartikolka ma sidii bay u socotaa aan jeclaa waxba isbedelay waa ka baxay